بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. waxaynu intii rabbiina garadsiyo ka tilmaami doonaa mowduucaasi ku saabsiisan caaqibatu dulmi waalaalimiin, ama cidhibta dulmiga iyo kuwa daalimiinta ah. ereyga dulm luqada carabeed waxaa lagu yidhaahdaa aljawr wa mujaawasat alxad, ama culammadu sharcan waxay ku tacriifiyeen inuu yahay shayga oo mowdiciisii sharciga ahaa aan la dhigin. wax kasta oo meeshii uu xaq u lahaa sharciyan ama laga kormariyo ama laga hoos dhigo, oo meeshay ahayd in la saaro aan la saarin. haddii meeshuu lahaa la saaro shayga waa cadaalad, haddii nuqsaan ama ziyaada lagu sameeyana waa dulmi. walidalik dulmigu wuxuu cagsi u yahay cadliga. haddii lagaa reebo dulmi macnaheedu waxa weeyaan ama cadaalad lagu faray cagsigeeda dulmigana waa lagaa reebay. yacni nusuusta sheegaysa inaad cadaalad samayso oo dhammi waxay dimnan sheegaysaa fii cilmi lusuul in dulmiguna manhi yahay. haddaynu sidaa u fasirno markaa qur-aanka aayaad aad u tiro badan iyo axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam wax tiro badan baa ku soo arooray. bacd alculamaana waxay idhaahdaan asal usuusha ugu waaweyn ka mid ah shareecada islaamiga, akhlaaqiyaadka islaamiga ayaa alcadlu walixsaan buu ku wareegaa bay yidhaahdaan. wuxuuba waxa la isfaray oo dhammi, in allaha yaamuru bilcadli walixsaani wa iitaa'i di lqurba wayanha can alfaxshaa'i walmunkar. sidaa awgeed baa culammada badh waxay yidhaahdaan aayaadka cadaaladda sheegayoo dhami waxay nahyinayaan dulmiga. yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu qawaamiina lilahi shuhada'a bilqist walaa yajrimanakum shanaanu qowmin cala an laa tacdiluu icdiluu huwa aqrabu litaqwa. rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuuna leeyahay kuwa iimaanka laga helay oo sifatuliimaan lahow waxaad noqotaan kuwa ku quma oo isu taaga xaqa alle subxaanahu wa tacaala dartii, kuwa cadaaladda la yimaada. yay idin dhaafinin baa layidhi cadho duulaa u qabtaan inaad cadaalad samayso. yay ku dhaafinen cadho aad duul u qabtaa inaad cadaalad samayso. waxaan leenahay nebigu calayhi salaatu wasalaam risaalada loo soo dhibay rusushoo dhammi dee waxay ku salaysnayd in la ilaaliyo cadaaladda. xalaaliya waxaa rasuul ilaahay soo diray iyo waxa kitaab soo degay oo dhammi ee min alraxmaan alraxiim ka yimi waxaa asal u ah in la cadaalad sameeyo. ilaahayna subxaanahu wa tacaala naftiisu ka xarimay cid kala daaye. tilka aayaat ullahi natluuha calayka bilxaqi wama allahu yuriidu dulman lilcaalamiin. tani waa ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaadkiisii oo laydinku akhrinaya baa la yidhi. ilaahayna subxaanahu wa tacaala dulmi lama rabo caalamka dhammaanteed. in allaha laa yadlimu mihqaala dara. ilaahay subxaanahu wa tacaala ma dulmiyo dhuuricasa in leeg ama waxa ugu yar. wain taku xasanatan yudaacifha, xasana hadday tahayna wuu laablaabaa ama waa tiro badiyaa. wayu'ti min ladunhu ajran cadiima walaa yadlimu rabuka axada waman yacmal min alصaalixaati wahuwa mu'minun falaa yakhaafu dulman walaa hadma. aayaadkaasoo dhammi waxaa rabbi subxaanahu wa tacaala uu ku tilmaamayaa min sifaatihi inay ka mid tahay alcadlu, inuu rabbi cadaalad sameeyo, wax dulmiya aanu samaynin. walidaalika baa xadiid alqudsiga alle subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa yaa cibaadii innii xaramtu dulm calaa nafsi. wardadow dulmiga naftaydan ka mamnuucay, idinkana waan idinka mamnuucay, ee falaa tadaalamuu hays dulminina baa alla leeyahy subxaanahu wa tacaala. idinka dhexdiinnana xaaraan baan ka dhigaye hays dulminina. dulmigu markaa waxaynu naqaanaa shareecadda xagga rabbi ka timi dhammaanteed inuu mamnuuc ku yihi. intaynan cidhibtiisa gaadhin maxaa dulmiyaan isweydiino.
culimadu waxay dhahaan dulmigu saddex qaybood baa loo qaybiyaa qofka oo naftiisa dulmiya oo ku dulmiya shirki gaalnimo alladina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulm ulaa'ika lahum اlamnu wahum muhtaduun baa ilahay yidhi kuwa iimaanka laga helay ee aan ku dheehinin iimaankaasi dulmi saxaabadu waxay dhahaan ilaahay rasuulkiisiiyo waayuna lam yudlim waa kee kayaga aan dulmi samaynini markaasuu nebigu yidhi miyadan maqal alcabdi saalix warkiisii ahaa ina ashirka la dulmun cadiim yaa bunaya laa tushrik biاllaah ina ashirka la dulmun cadiim idan dulmiga koowaadee la reebay waa in ilaahay subxaanahu wa tacaala xuquuqdiisa lagu xadgudbo xaqa rabbo lagu xadgudbana waxa ugu weyn maxay iyadoo ilaahay subxaanahu wa tacaala loo shirik yeelo cibaadada cid kale lala wadaajiyo isagoo ku abuuray oo ku arsaaqay oo ku caafimaadiyey oo dunida ku keenay oo waxaad cunaysa leh oo kownka dhammaantii iska leh haddana cidaan isaga ahayn inaad u mahadnaqdo caabudo waa mamnuucaadka ugu waaweyn walidalik baa ilaahay wuxuu leeyahy waalkaafiruuna hum aalimuun baa ilaahay yidhi gaalunbaa dulmi sameeya ama daalimiinta dhabta ahi waa kuwa kaafiriinta aba rabbi ku tilmaamaya waa xuquuqda ilaah oo la dulmiyo waa qaybta koowaad qaybta labaadna waxa weeyaan qofka oo isagu naftiisa dulmiya oo macaasi ku dulmiya macsi ilaahay subxaanahu wa tacaala dulal badan buu intuu halaagu wuxuu leeyahy wamaa dalamuuna walakin kaanuu anfusahum yadlimuun wamaa dalamahum allahu walakin kaanuu anfusahum yadlimuun ina allaha laa yadlimu nnaasa shay'a walakina annaasa anfusahum yadlimuun waman yacmal suu'an aw yadlim nafsah uma yastakfir ilaha yajid ilaha gafuuran raxiima macaasida oo dhan iyo cibaadada rabbe laga tegayo faminhum daalimun linafsihi ilahay uu qur-aanka ku leeyahy waxaa dadka ka mida baa la yidhi midaa daalimun linafsih saabiq bilkhayraat baa ka mida waxaa kaloo ka mida baa ilaahay yidhi daalimun linafsih waa dulmun duuna dulmin qofkii samaynayey siiba dulmiga ku saabsan naftiisa ee ah waajibaadkii shirkiga kuma dhicin laakiin waajibaadkii rabbi faray buu wax ka mida ka tegey ama muxaramaadkii laga manciyey buu wax ka mida ku dhacay iyana waa dulmi qaybta saddexaad oo dulmigu waa dulmi alcabdi ligayrihi min alcibaad waa qofkoo dadka kala dulmiya oo xuquuqdooda dulmiya walidalik baa nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidka caaisha warinaysa waxay leedahay addawaawiinu cinda allahi caza wajalla alaaa diiwaanku ilaahay agtiisa waa saddex diiwaanada wax lagu qoraa ee rabbi hortiisa la keeni doono ee qofka addoonkaa loo sidaa waa saddex diiwaanun laa yacba'u allahu bihi shay-an wa diiwaanun laa yatrukuhu allahu minhu shay-a wa diiwaanun laa yakfiruhu allah diiwaan aan ilaahay waaba yeelin iyo diiwaan aan waxba lagaaga tegaynin iyo diiwaan aan isaga laguba dembi dhaafaynin diiwaan aan lagu dembi dhaafaynin waa haddaad gaalnimo ku dhacday oo kaa ilaahay ma dhaafo gaalnimada innahu man yushrik biاllahi faqad xarama allahu calayhi اljanna qofkii ilaahay subxaanaه wa tacaala u shirig yeela ee dulmiga noocaasa ku dhaca ilaahay subxaanaه wa tacaala janno wuu ka xaaraam yeelay diiwaanka aan ilaahay u aabba yeelaynin laa yacba'u bihi waa wixii adigiyo rabbigaa idin dhexeeya ee macaasiyaad ku dhacday in shaaa cadab wa in shaaa gafar ilaahay waa kaa dhaafi kara subxaanaه wa tacaala diiwaanna lagaaga tegi maayo waa dulmu lcibaadi bacduhum libacd waa addoommuhu dulmiga iyagu isdulmiyeenee badhba badhka kale uu dulmiyey waa laa budda min qisaasin isagu waa lagu qisaasayaa laa maxaala sinaba lagaaga tegi maayo aakhiro waa lagu soo taagayaa waa ka nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka kale ku leh
من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها. عن رجين إنه بخاري كي لك كله كهر إمام أحمد يا حاكم يا غير كباوري علماء بدنا عراقي كمدينة وتصحيحنا يعني. waxau nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam qofka walaalkii dulmi ka galay wara ka xalaal dalbo yani toobada dunuubta inaad ka toobad keento ilaahay toobada wuu aqbalaa laakiin haddii dambigu ahaa dambi aad bini aadam ka gashay waxa waajib kugu ah inaad samayso inaad ka xalaalmi weydiisato inuu ku cafiyo waayo nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam maalin baad imanaysaa aan dirham iyo diinaar toona jirin oo qofka waxa uu kaa guraya ay tahay xasanaadkaagii wixii aad shaqaysatay uu kaa gurayo haddii aanad xasanaad haysan oo ay kaa dhammaatana lagugu bedelayo sayi-aadkoodii in dusha lagaa saaro. idan ikhwatii fi lcaqiida suwaru dulm waa saddexdaa qaybood bay culammadu u qaybiyaan. qayb aan ilaahay dhaafayn oo gaalnimo ah iyo qayb lagaa qaadi doonaan lagaaga tegaynin oo addoomaha wixii aad u geysatay ah iyo qayb rabbi subxaanahu wa tacaala aanu aabba yeelin oo uu kaa dhaafayo. insaankuna sidiisaba min tabcihi bay ka mid tahay inuu wax dulmiyo. ilaahay ba qur-aanka wuxuu ku leeyay wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha ina alinsaana laظaluumun kafaar. haddaa ilaahay nimcooyinkiisa tirisaan soo koobi kari maysaan baa rabbi leeyahy subxaanahu wa tacaala. bini aadamku sidiisii u yahay baa ilaahay yidhi daluum, mid dulmi badana ah oo gaalnimo badan ayuu bini aadamku sidiisa yahay. innahu kaana daluuman jahuula. hayad kale waa kii ilaahay ku sifaynayay. insaanku min tabcihi ayaanu cidba wuxuu ogolay, laakiin islaamnimadu waxay u soo degtay in tamaacnimada inta lagugu itixaamo la eego bal inta aad qabsoonto iyo inta aad qabsoomi weydo. islaamnimada macnaheedu waxa weeyaan markaasi oo ilaahayba kitaabka u soo dejiyey in cadaalad lagu dhaqmo oo qofku uu naftiisa kontrooli karo. suwaru dulmina waa qowl iyo ficilba way noqdaan, si kale haddaynu u qaybino. qowl way noqdaanoo waxaynu maanta tilmaamaynay ee cay iyo xan iyo namiimo iyo sukhriyo iyo buhtaan iyo qadfi iyo waxaasoo dhammi afxumo ee af ka soo baxoo dhamme waa dulmi ayuu noqon karaa. qaybina waa ficil oo waa dil iyo boob iyo dhac iyo zine iyo khamri cab iyo waxa la halmaalo oo dhammi iyana waa dulmi kale. qofka mu'minkaa waxaa laga rabaa waxay tahay markaasi inuu dhowrsoonaado. nabi muxamedna calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ittaquu dacwata almadluumi wain kaana kaafira fainahu laysa duunaha xijaaba. war daalimka madluumka dacwadiisa iska ilaaliya xataa gaalna ha noqda iska jir baa la leeyahay. ilaahay inuu kuu baryo qof bini aadam oo aad dulmiday khatar weeyaan. waxaynu u gudbi markaa haddaba dulmigu maadaama uu caynka hayay cuquubadiisu waa maxay? cuquubadu waa kala weyntay. waa cuquubo addunya cuquubo aakhiro. adduunka waxay yidhaahdeen dulmiga cuquubaadka laga dhaxlo waxaa ka mida koow amni darra bay yidhaahdaan. soomaalidu waxay yidhahdaan dhagar qabe dhulkaa u dhaqdhaqaaqa. yacni markaad wax soo dulmido wax kasta waad ka baqaysaa. waxay yidhahdaan kow waa aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanuhum bidulmin ulaa'ika lahum اlamnu baa ilahay yidhi wahum muhtaduun. kuwa iimaan laga hela aan dulmi ku dheehin baa nabadgelye iskale baa la yidhi. ammaan. ammaanka ugu weyne ay leeyihin waa ammaanka maalinta qiyaame. mushrikiintu dee nabad ma haystaan. adduunka inta la jooga bay leeyihiin lafteeda ahluliimaanku waa mutma'inu lqalbi waalbaal. waa qof qalbi ahaan iyo laab ahaanba degan. waa qof aan cidna wax u geysanin. ama daalimku waa qof baqaya oo cabsanaya. mahmaa uu cid soo dulmiyey dhagarqabuu ma seexdo
وفيتشي ولذلك بوحي دقاقبا ظلمك أما هيرادا أما هويناد انتو دون يهلكادو يعني قفكو ظلمك وحو سمايا وبقدر مسؤوليتي مكهره midbaan mas'uuliyadiisu reerba dhaafsiisnayn oo islaanta iyo labada caruur ku durdurinayo dulmigiisu yahay qof dumar ah iyo laba caruur oo dhalay inuu dulmiyo midba dawladda dhan haysta oo dulmigiisu yahay bulsho weynta uu xukumo inuu dulmiyo midba meel ka hooseeya jooga qofba meel buu jooga biqadri al-mas'uuliyya baana dulmigu jira biqadri al-mas'uuliyya dad badan oo imika la yaaban niman madaxa iyo baan isleeyahay haday madax noqon lahaayeen way ka sii dari lahayd waayo qofka mas'uuliyadda yar qaadi kari waaye mas'uuliyadda weyn ma qaadi karo qofka in masaajid ku tukata kala didinaya ma bulshad ka tira badan oo mid xun iyo mid wanaagsan la isku wadi karaya yani qofka masaajid inta ku tukata dulminaya in ka weyna ma maamuli karayo idan dulmiga cirib xumadiisa waxa kamid ah inuu qofku nabadgaliyo waayo iban adduunka nabadgaliyo ma haysto garantiye ilaahay quraanka wuxuu ku leeyahay falama nasu ma dhukiru bihi fatahna alayhim abwaaba kulli shay hatta idha farihu bima utu akhadnahum baghta fa idha hum mublisun faqut'a dabiru alqawmi alladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin markay ilaabeen baa ilaahay yiri wixii aanu ku waaninay wax kamid ah ayana anagoo si itixaamayna waxaan u furay baa ilaahay yiri abwaaba kulli shay albaabada wax kastaba uu ka gaaloobay ilaahay uu beeniyay hadana adduunka loo sii furay xoogiisa iyo quwadiisa iyo lacagtiisa baa sii badatay laakiin ilaahay wuxuu leeyahay hatta idha farihu bima utu marka ay gaadhaan xad ay kibir iyo qooqooda loo taag waayo wixii alla siiyay qooq ka sii qaadaan ilaahay wuxuu leeyahay akhadnaahum baghtatan faydahum mublisun maruban sikadisa u qabanna sababa kuwa qoostay baa ilaahay yiri subhanahu wa ta'ala faqut'a dabiru alqawmi alladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin waxa la gooyay baa ilaahay yiri xidhibtii kuwii dulmiga sameeyay ilaahay baana ku mahadsan subhanahu wa ta'ala ظالمك أدونك عرب حمضة سولي ظلمك عربتيسو ولا بد من هلاك ولو إلهي وقت أكاديه إلهي القرآن كوحكوليه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون لكن ربي وحوليه ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة dadku waxa ay dulmi sameeyeen hadii rabbi u qabto dhulka korkiisaba waxba laga ma tageen ba ilaahay leeyahay subhanahu wa ta'ala walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma waxa ilaahay ugu gadaal dhigaya waqti magacaaban fa idha jaa ajaluhum fa inna allah kana bi'ibadihi basira hadii waqtiga ajashooda ay timaado ilaahay subhanahu wa ta'ala doomihiisa ku og oo arkaya waxay sameeyeen weeyaan يعني رب سبحانه وتعالى وحت المامية يدو للاستدراج لحكم يعلمها الله وأملي لهم بإلهيه وأكادية ظالمين تو إلهي وحب الله قاضي عنده مال هرت الله حساب تميين يشرته بني آدم كوحس كتشعلية كوكستو ظلمية مركبين وصاقها الله صاقبته ninkii dawladda haystay kumaankumka dilay ama malaayiinta dad dagaal ku dilay hadii markiiba la soo qabto even oo la dilo 10 milyan isagoo dilay hadii la dilo de qof waa loo dilay hal naf oo gooya loo gooy 9 milyan iyo 999 kun kale ee nafood maxaa la sameeynaya ظالمك ودن كتالية هديبه إيفان لقبطه لديله انتي وكالو الدنبي ماذا وحاسو بشر الله وحاسو بشر ظلمي إلهي وحلي محكمة بان لا ينو قارة وعذاب الله يراهضه
oo intii dada dambigooda lagaga jarayo ولذلك بقى رب سبحانه وتعالى وحليهي dadku dulmiga ay sameeyaan hadii xabad loogu qabto dunida badeena nolol kama jirteen ba ilaahay kii dulmiyaba hadaan ku dhagaba ilaahay leeyahay subhanahu wa ta'ala bini aadamna dulmi deyn maayo kii dulmi sameeyaba hadii la qabtana ma taraka ala dhahriha min dabba dunida korkeeda waxba lagaga tageen ba ilaahay leeyahay subhanahu wa ta'ala laakiin intooda badan dib baan ugu dhigayaa ba rabbi tilmaamaya in lagu cibro qaatana وتصيا إلهي إليه سبحانه وتعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجسا من السماء بما كانوا يفسقون إلهي وحط الماما سبحانه وتعالى عقابتا دبتا اي حسابتا دبتا وان كيديبا الهي ليو ميل بيت الله مالين بانا لا حسابينيا ku kasto dulmi sameeyana ba ilaahay leeyahay hadaan qabto waxba soo hari maaya daba nolosha waa la isku keenay taxaamayo fursad baa la isasiinaya ba ilaahay leeyahay subhanahu wa ta'ala la'allaka tatub inaad soo noqoto inaad rabbi caabudo inaad dib u toobad keentid fursad baa lagu siinaya dulmigu inuu xun yahayna نماذج بان idin siinaya ba ilaahay leeyahay examples tusaalayaal quraanku wuxuu inooga waramaya marka wixii ummad intay kibirtay la halaagay quraanka ilaahay wuxuu ka waramaya maxay qisooyin tira badan ha hiya aaqibatu zalimin qisas ka tirada badan leh ilaahay wuxuu leeyahay fa kullan akhadna bi dhanbi mid kastaba dhanbigiisa waan ku qabtay ba ilaahay yiri dulmigiisa فمنهم من أرسلنا عليهم حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وحكم دابا إليه سبحانه وتعالى كي هرسدي الله هلاقي با إلهي تلمامة قار دولك للقوي قار قيل لغو هلاقي qaar dabayliya balaaya lagu itixaamay qaar badal la raacsiiyay qaar basibaan u halaagay ba ilaahay yiri dhamaantoodna waxaan ku halaagay ba rabbi leeyahay dambigoodi wama kana allah liyadhlimuhum ilaahayna kooxnaba ma dulminin waxa soo dhamaantood rabbi wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala iyaga ayaa dulmiga sameeyay ee anigu qaarnaba ma dulminin idan waxaan leenahay waxa dunida soo maray ee cid la halaagay waa namaadij وتصاليال إنك الله ينربو إنه كعبر قادنا بل يكون دنيا لهلاقي قوقي أي إلهي وحط المام يا قار حتى قلفتو دين ولا الريبيو سدتك عبر وين يقصي نقطة كوين شوقنا حتى ينكو عبر قاطان فرعون وحكم دي يدتك وقوق قبضنا دنيا صامري صحيح كما وهي وانك انتو ضد شرطة لها أنا ربكم الأعلى ربك كرية هذا ما ربك هو سيبا ربي هذا يرير ماها أنا ربكم الأعلى بوي ربي إن كرية أنا ما علمت لكم من إله غيري إله أنا هاي بيدين قرن مايو حد قادي لمن حوله كيدا هذا ضدك هو سماها يا شعب كيرا ولمن حوله من الملأ مدح يواوين تيسقاك تيسمام الغغلد اللي وداقي سي أيو لي إله أنا رجع هين دين قرن مايو ربي سبحانه وتعالى كاوحة المامية إنه هلاقي وبضة أي لا تكتي ومركي نفتك سيبا حيسي وقيليي وهو كل واقع وحن رمي خير بنو إسرائيل أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين إلهي غير بنو إسرائيل عابد أيام بنا الرمي مسلم كان كم ضحي وقرأ قرقرة سوق على واختيار لا أقبلين حتى التوحيد كجرة توحيدكم أنت فرصة هاي سطه أي ربك أقبله لكن إلهي عذاب كيسو مركو سود ضدك اللي هلاقيه أما قرقرة مركي سوق قاعدو توحيدك لما أقبله مركب برد واقع فرعون
وحل وجهه الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ما هدي كايرسي سيبا ليري لا إله إلا الله يا وكانت شيغيسو ما هدات كل واقدي أديكو هوري مفسدين توغا مدها إلهي وحين لي مكا آيات انت نوغا سودا وهلكن فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون با إلهي فرعون وما انت با إلهي وحن بدبادنا يا قلفتاada jidhkaagan soo reebaya si aad ugu noqoto calaamad ya aayad ay wax ku qaataan kuwa adiga ka dambeeya kibree qooqa sida warkaan nin kasto qooqa halka uu ku dambaynayo haddana ilaahay wuxuu leeyahay wa inna kathiran min an-nas an ayatina laghafilun dadka see in badan oo kamidi waxa ay gaafil ka yihiin ba ilaahay yiri waa moogayin ba aayadkayga waxa aan tusaalayaal siinaya ba ilaahay leeyahay dadka in badan oo kamida ba gaafilin ka ah إذا رب سبحانه وتعالى كوحه هلاقي يوحي لوحن وقتل قلي إن كنت صالة قاضتان ما أنت أحداث عالم الإسلامي كالنعضي وقت يدعيين بين دروس كغبنا يا محاضرات تبقى قلنا وقرتان لكن مركا دركتان نين شاليتو قال إنك أنتو قرى داد كمانكم الله حلو وكمانكم الله لينيي وما أنت سيدي ميت يسوي كل بس سرير لقو سيدا محكمة لقو سي وضع ميانا هين وحلقوا وانا قاطو دي فرعون بيلا هيدي وان ريبيا قلفتي سوحانا نور ريبيا انا كوانا قاضتان بيلا هيدي سبحانه وتعالى مركا دركتو متشاليتو مساجد لها وحا لقو قالي كراكات سيلو اوغادو انت سلادو دي اتكتي ظلمكو هلكا كغارسيسانيي wax isagaba ku saabsan ma aha ilaahay inta fooda dhulka u dhigtaa lagu tirinaya ma aha dawlad iyo maamulkeed iyo xooggeed iyo waxeedaba hadaad iska daysa xataa ayaa tirada ilaahay uma isaga sujuudaya sujuudada lagu tirinaya way ka gaadhay ilaahay rabbina tusaysiga dunidaba meel uu ka galala kolba diyaarad saaran oo wadan waliba leeyahay war ragad xataa kuwii waxan la waday sidii shaytaanka yiraahdeen waa ka gaalowna nala dhaaf شيطان كان إلى القرآن كوحو كتل ماما بن آدم كانوا يدهد قالوا فلما كفر قال إني بريء منك مركو قالوا بابو يدهد بريء منك آهي إلهي الشيطان ولذلك إخوتي في العقيدة وحين لنا هاي وحن كوارث يبلا يدع عيسى يدول أن لكوها لا جياه انت وقبضا لوا ظلم يكتمي ظلم البشر عقابتي كدالتي ويان وحانا يهين بينو لنا نماذج وإكسامبولسون إكسامبولس كان وحل ينوسي إن النوق عبر قادنا أما حسابة الظالمين تا ويدا بيسا حسابة الرسم قاهي إلهي سبحانه وتعالى وحط الماما يا آخر مرك الله يماده ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون ما لها با إلهي سبحانه وتعالى قوة الظالمين تاهي ما لها مد سكية يمد الشفاعة قادتون ما لها با إلهي ليه وأنت قيامة لصوت بيه وحال إلى هذا رب إليه سبحانه وتعالى كوي ظلم قسميه ردمية وحا ظلم صوصة ويسين إلهي نوحينا وبلن قادوين ليه نبي عليه الصلاة والسلام حديث قلت المامة إن الله لا يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته إلهي الظالم كواوكادية هدو سقبته ما بحث ضرا إلهي سبحانه وتعالى وهل لسوغا مدى لسيا عسى ولعل أن يتوب بل إنه توبت كان إنه كسر نغضه لكن ربي وحليه سبحانه وتعالى هدان قبطه ما بحثه لبيتنا النبي قوح آخرية وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد ربي سبحانه وتعالى وحين ليه ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين إلهي سقى وحنو شقى وحليه وركوي هرميانا هلاقين با إلهي سبحانه وتعالى وحا أمامان ذي كسو شيكي ميانا هلاقين كوا كلميانا كدبقين با إلهي سبحانه وتعالى سيدا صنبانا كوا ضيا با إلهي مجرمك ظالمين تا كذلك نفعل بالمجرمين با إلهي سبحانه وتعالى
laakiin bini aadamka cibro qaadashadiisu yartay bini aadamka ayaa waantowgiisu yar yahay waxaa nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam axaadiista saxiixa ah bukhaari warinayo iyo kuwa kaleba waxa uu nabigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam xadiidka imaamu albukhaari wariyey ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة صدح أنيقا أهبر ربي لعدة للدودة سمالة قيامة رب الدعوة كوسو كور ويسوي كل الدودة ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يؤته أجرته nin ilaahay magacii ku bixiyey cahdi dabeetana khiyaameeyey nin wixii qof xora intuu soo qabsaday iibsaday qof xora intaad qabato inaad tira lacag la siiyo mooyaane laba sii daynayo waan iibsanayaa qof intuu qof xora soo qabsaday iibsado lacagtiisa cunay baa rabbi leeyahay subxaana wa tacaala iyo qof intuu qof shaqaalaystay markuu shaqadii ku dhammaystay u diiday ujradiisii shaqadii markuu ka dhammaystay yidhi warood iska tag waxaan baad xumayso halkan wax kamad qabanee idhaaf waxba ku siin maayo waxba ma lihi maantoo dhanna wuu ku shaqaysanayay ama bil dhan buu u shaqaynayay saddexdaas buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam rabbi wuxuu yidhi waa saddex dulmi oo ka fudud dulmiyada waaweyn ee weliba la sheegayo kuwa aniga maalinta qiyaame khasmigooda ah baa rabbi leeyahay subxaana wa tacaala waa dad ducafa ah oo dacfigooda laga faa'iidaystay waa nin intuu dad u ballan qaaday ammaan iyo cahdi siiyey haddana khiyaameeyo laayay dacfigooda ka faa'iidaystay waa nin dad masaakiina intuu iska soo qabsaday yidhi lacag lay siiyo mooyaane sii day maayo ama iibiyey waa ducafo waa nin miskiinoo shaqaalo ah oo ay xoolihii laga dafiray kuwa ka buu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala anigaa ah maalinta qiyaame kala doodaya nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixaynka ku yaalla wuxuu leeyahay wallaahi laa ya'khud axadun minkum shay-an bigayri xaqihi ilaahay baan ku dhaartay midkiin wax aanu xaq u lahayn ma qaato gardarro wax kuma qaato ilaa laqiya allaha yaxmiluhu yowma alqiyaama ilaa maalinta qiyaame wuxuu imanayaa isagoo xambaarsan oo ku raran iyadiyo dulmiya maanta xoog baad isbiddo waad ku qaaday qalinkaad tiri waxbaad ku xisaabsan karaysaa waad ku khiyaamaysay qaabkaad doonaysa u qaad waxaanad xaq u lahayn oo aad qaadatay maalinta qiyaame adoo ku raran baad iman buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam falaa acrifanna axadan minkum laqiya allaha yaxmilu baciiran lahu rugaa aw baqaratan laha khuwaar aw shaatan taycaru nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam aakhiro waxaa la keeni doonaa mid oo aan garan doonaa isagoo awr ku raran awraad ninkii lahaa ka qaaday adigoo dusha ku sida awr geela ka waran neef geela adigoo xambaarsan ama sac adigoo xambaarsan ama neef hida oo intuba ciyayso yani tuuga waxaa laga yaabaa markuu waxadaya ama wax qaadanaya inay aamusan yihiin marka kan waxaa la leeyahay awrkoo doobiyaya ama hashoo qayliyaysa adoo dusha ku sida ayaad la imanaysaa sacoo banaaxinaya adigoo dusha ku sidaad imanaysaa waxaad imanaysaa rida ama laxda iyadoo aanayso qaylinaysa adoo dusha ku sidaad imanaysaa khalaa'iqda ilaah oo dhan oo ku daawanaysa lagula soo taagayaa wixii aad xaday iyo wixii aad man daraba bisawdin dulman iqtasa minhu yowma alqiyaama xadiidkii kale bukhaari hal dhengada qofka cid ku dhuftay dulmi ugu dhuftay dhengad yaroo dulmiya walow macallin qur'aanna ha noqdee aabba ha noqdo aabbaha iyo macallinka iyo kuwan wax tarbiyeeyaa la yidhi laakiin wax iska dila lama odhan hadday dulmi tahay aakhira wuu imanayaa isagoo dhengadiisii sita waana laga jaraya idan nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam
dhangad baa ugu yara dhangad qofkaad ku dhufatay waad iman maalinta qiyaame adigoo xambaarsan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay axaadiistiisa waryaadhahan mufliska ma taqaanin buu yidhi caydha wax ma haysatada maalinta qiyaame cidda caydha ma taqaanin buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxay idhahdeen dee caydha annagu waxaan u naqaanaa man laa dirhama lahu walaa mataac ninkaan mood iyo noolkoona haysan dee mood iyo noolkii soomaalidu sheegi jirtay yacni wax kaasha iyo wax aseta toona ma leh waxba ma hayo kaasaanu caydha u naqaanaa bay idhahdeen ilaahay rasuulkiisiiyow nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay war caydh iyo wax ma haysato waxaa ah ninka maalinta qiyaamaha yimaada isagoo soon iyo salaad iyo zakaba soo sameeyey laakiin yimi isagoo kan caayay oo kan maagay oo kan xoolihiisa cunay oo kan dhiiggiisa daadiyey oo kan garaacay oo kan midba wax ku sameeyey oo dabeetana dadku dee deyn bay ku lahaayeenee loo qaybiyo wuxuu hanti haystay marka kan hantidu waa xasanaadka hanti kaloo la hayaa ma jirto dadkii deynta kugu lahaa intay isu soo tubaan ayaa loo qaybinayaa markaa xasanaadkii kaad cayday kaad dishay kaad maagtay wixiiba iyagaa loo qaybinayaa nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu gaadhayaa xad wixiisiiba dhammaadaan dadkiina badhweli hadhay dulmigu wuu kala badan yihi bal ninka 1 milyan oo qof xoolahood xaday ka waran ninka nin qura wax ka xaday dee nin baaba wax ku leh Soomaalidu waxay moodaa xoolaha dawladda iyo meelaha kale inay iyagu waa nin rag la yiraahdo ninka habelintii uu wasiirka halaba guriga reerka u dhisay hadda labadan guri waxa laga yaabaa 10 milyan oo dad ay ka dhaxeeyaan aakhiro 10 milyan oo qof markay kuyu ku soo gasho ka waran 10 milyan oo qof oo Soomaaliyeed marka la yiraahdo ninba jabbu leeyahay inta la kacday 10 milyan oo qof isa soo taagto ilaa waa waxoodii waa hantidoodii nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam dadku waxay moodaan xoolaha dadka badan ka dhaxeeya iyagu inaan aakhira la soo qabsanayne ka qofka caadiga laga qaado war 10 milyan oo agoon iyo miskiin iyo mid bakhtinayay iyo wax waliba ku jiraan kana dhacdo waxa laga yaabaa hal nin oo qaniyo wax iska haysta iyo wax inaad ka dhacday waa dulmi laakiin hal qof baa laga yaabaa inaad gashay waxaad ka qiyaastaa 10 milyan oo qof oo agoomale oo dad waalan leh oo masaakiin leh oo caydh leh oo baahi leh oo wax walba leh marka aakhira intay soo tubaan ilaahdaan kan baa wax yagi qaatay nabigu wuxuu alayhi salaatu wasalaam xasanaadkaaga marka loo dhameeyo dulmigooda la soo gurayaa adiga dusha laga saaraya dunuubtoodii qofkii dulmi sameeyay waa kuwa kan waxay ku dhawaaqayaan waqaalu ya waylana hada yawmuddiin hada yawmul fasl alladhi kuntum bihi tukadhibun احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون إلهي وحليه سبحانه وتعالى وحلي هذا ويدواقنا وحيده يا ويلنا هذا يوم الدين هلاك يجي شلاطة يضي هوق يجو صو حاضر بيده يا حسرتنا هذا يوم الدين ما أنت وما أنت حساب تبين هذا ما أنت أبال مركي جزاك أيان النمي بين هذا حلين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون وما أنت كلبحة الدنيا ده مركي شوكتين بيني نسيه أما ما ترمي سنين أما هو تسكين ده مري سيو وحمون سكان دال هذا هيسته إلهي وحول هذا احشروا الذين ظلموا وأزواجهم soo xaadiriyo keena kuwii dulmiga sameeyay azwaajtooda inay tahay reerahoodii oo ah reerihii la ogolaa inuu wax dhaceen oo soo qaaday islaantii lahayd ama maxaad noo dhaqdayda lahayd soo gur xoolaha kan khayrka aba daaru dhistay miyaad adigu waxba dhisanayn la daba taagnayd way la cabaysaa ilaa raallay kala ahayde ama ma he alladina zalamu wa azwaajahum azwaajtani wa asnaaftodi kuwii la kooxdaha إلهي وحليه سبحانه وتعالى وحلا أحشروا الذين ظلموا وأزواجهم صو حاضرية كوي ظلمك السمية كوي لك وحضا هابا إيا ولبا وما كانوا يعبدون وحي عابدين ينكو صدر ألا سكدي فاهدوهم إلى صراط الجحيم
jidka jahannamo ku toosiya baa la yidhahaa xaggaa u dareera dhaha markaasaa weliba waxaa la yidhahaa waqifuuhum innahum mas'uuluun tuba oo joojiya waa la weydiinayaa baa rabbi leeyahay subxaanahu wa tacaala wixii ay galabsadeen baa la weydiinayaaye joojiya dulmiga cidhibtiisu ikhwatii waa kaa dulmiga cidhibtiisu waa inuu aakhiro baryootamo oo xataa baryadiisa la aqbali waayo dulmigii waaweynaa kuwii galay ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين ربي وحليه سبحانه وتعالى قال ذي جنة قشي أيها ويارد قال ذي نار قشي دكي لك لسوع نولي بوحي لها قادي لبسف لك لقل qolana janna ay u hoyatay qolana naar bay u hoyatay laakiin de waa la iswada garanaya ragaa taqaanay dii rabbi janna ku geeyo oo naar ka dhawaaqaya aad arki doontaa dabeetana qoladii jannada gashay baa qoladii naarta waxay yidhaahdaan an qad wajadna ma wacadana rabbuna xaqa war annagu helay wixii rabbi noo yaboohaye fahal wajadtum ma wacada rabbukum xaqa idinna tii laydinku yaboohee naarta aha ma haysaan annagu anaga adduunka markaanu joognay masaakiinta iska ahayna dulmiga iska ilaalinay ee rabbiga yar raacnay wixii rabbi ballan qaaday waan helay qoladii kibirtee qooqday ee dadka dulmiday ee rabbi diiday idinku ma hesheen wixii la idin yaboohay bay yiraahdaan maalinta tandeed dafiraadi ma jirto markay xadkan soo gaadho qaalu nacam bay yiraahdaan ha hanana waa haynaa wixii cadaaba إلهي وحليه فأذن مؤذن بينهم مد واقع دحدو ذكر واقوم حليه اللعنة الله على الظالمين إلهي عددي سيا عقابتي سيا فوقينتي سها هاتو كوي ظلمك السميني أبا المركة الظالمين تواكاه يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ربي وحليه سبحانه وتعالى ومال أنا ينفعين كوي ظلمك السميني وحي عذر ذار لي ما دان ردن ومالنا إلهي عددي عذاب كبليه ومالنا عقاب توضرا إليهين آخرنا واقع أدونكنا وهلاك آخرنا وأبا المركة الرسمية أدونك وأن بدقل يدر يأمن الدر آخرنا وعذابك إلهي سبحانه وتعالى عذاب هذا فضفضض حكم إذا أنت أدونك اللي تشوقه الظالمين تلقوا عذابه رب قرآن كوحكوا ليه وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون وحنو ظالمين تبرد ببرد كلانو مضح وقدقنا وحي كسبدين درادين آيادا نفرسو انت بدن هدا دركتو مضح يدد حن انت بدن وحي كيمادين شعب يدد حن ووحا adag umada markasta inta la hufo oo la haadiyo marad xumiyuun inay kor soo maraan waa wax adag laakiin macnaheedu waxa markasta la hufiyo la haadiyo hadii uu habaar qabe ka soo boodayo meesha wax nafle marka hore ku jirin waxana aad kala hufaysay haadinayso ayaan waxba ahayn ciqaabta dadka dulmiga sameeya waxa kamida in madax zaalimiina ilaahay ku itixaama leeyahay wakadalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan idan bulshada hoose haday dulmi wado dulmiga raali ka tahay mid reerka dulmiya iyo mid caruurta dulmiya iyo mid qoyska ku xiga dulmiya mid jaarka dulmiya mid tijaarada dulmiya wax dhacay dadka ka iibiya miisaanka u khafiifiya waxaan jirin isugu walaaqa mid lacagta dulmiya oo mid faalsa u samaysto dadka booba mid biyaha dulmiya umada u diida ceelasha inay ka cabtiyeen kan ninba intii tamatiya markuu dadku dulmiyo إلا ظلمه تجارته قلا وميزانك يا وحلا قضي يا وحلا بيجي يا وحلا بيعنا يو قلا أو حكم بو قلا أو مامل بو قلا أو وحلا قيف سنة يو قلا أو نلا شرط بو قلا نلا شرط بعدالة باهن
noloshaba haddii cadaaladda laga suuliyo oo dulmi ay isugu baxdo ilaahay wuxuu leeyahay wakadalika nuwalli bacda adh-dhaalimiina bacda kuwa iyana ka dulmi badan oo madaxun baa lagu sii itixaama kuwa ka dulmi badan oo madaxa ayaa lagu sii itixaama sida awgeed qaacidadu waxa weeyaan rabbi wuxuu ina yidhi qul yaa qawmi icmaluu calaa makaanatikum innii caamil fasawfa taclamuuna man takunu lahu caaqibatu ddaar innahu laa yuflixu adh-dhaalimuun qaacidadu waxa weeyaan innahu laa yuflix adh-dhaalimuun ma liibaano marnaba kuwa dulmiga sameeya ma guulaystaan nabi maxamed ilaahay wuxuu yidhi waxaad ku tidhaahdaa icmaluu calaa makaanatikum innii caamil hadda ay diideen wanaag kastoo aan idiin sheegay mar hadduu idin mari waayey haye shaqadiina qabsada anna taydaan qabsanayaaye waxay idin ogaan doontaan cidhibta dambe cidda yeelata ayay idin garan doontaan waxaa kaloo ogaataan dulmi inaanu marnaba guulaysanin maantaad xoog badatay dowladdaa gacantaada soo gashay reerkiina maanta xoog batay innahu laa yuflixu adh-dhaalimuun abaa farxi imisa reer intuu guulaystay isaguna ilaahay isku itixaamo isku madhay haddana ma jiro dulmiga cidhibtiisu waa falax kama jiro guul ma aha dulmi si awgeed baa ilaahay wuxuu leeyay innahu laa yuflixu adh-dhaalimuun ilaahay wuxuu inoo ballan qaaday wahal yuhlaku ila alqawmu adh-dhaalimuun وميابا لهلاقابا إلهي لي كوا ظلمك السمية من قاركال فقطع دابر القوم الذين ظلموا ولقد أهلكنا من قبلكم لما ظلموا كويدين كيدين كهريبا وان هلاقابا إلهي لي قرمة لما ظلموا با إلهي لي وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وانشأنا بعدها قوما آخرين في سورة الأنبياء إلهي وحليه سبحانه وتعالى imisaan dhabarka ka jabinay magaalo dhaalimada ahayd oo iyada dabadeed duul kale aanu dhaxal siinay waa kuwii la lahaa haroorina markay cadaabka arkaan waara ka yaacine waxa daariyo xoolo dhisteen dib ugu noqda ilaa waa leedin weydiinayaane waa tabkiita lahum halaag baa soo socda way yaaceen wixii la isku haystayna dee adduuniya xooliyo daariyo maamul bay ahayd wixiina waa laga sii cararaya cadaab baa soo degay markaasaa rabbi wuxuu leeyahay laa tarkudu warjicuu ilaa maa utriftum fiih waar haroorina ee dib ugu noqda wixii aad ku nimcaysateen waa laydin weydiinayaa baa la yidhi qaaluu yaa waylanaa innaa kunnaa dhaalimiin famaa zaalat tilka dacwaahum baa ilaahay leeyahy weedhoodu kamay zuulina inay idhaahdaan waxaanu ahayn kuwa dulmi sameeya laakiin maalinta tan ictiraafku waxba ma taro intaad jaaniska haysataa ictiraafku wax ku taraa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo tilmaamayaa halaaga dhaalimiintu inuu sunnada ilaahay ee dareertay uu yahay dalika min anbaa'i alquraa naqusuhu calayk minha qaa'imun waxasiid wamaa dalamnaahum walakin dalamuu anfusahum famaa aghnat canhum aalihatuhum alatii yadcuuna min duuni illah إلهي وحليه سبحانه وتعالى تاسي وورركي مقالوين كي هو ردو المقسميي إخوتي في العقيدة ظلمي قوك لتشره ظلمي كصاب سيسرنا ضرب الظلم ذو قال لماذا كصاب سن رب سبحانه وتعالى إنه كود القاتابة وبضنطهي هداد الضومة وعدالة تميس ولذلك بقى آيات قرآن وحي علماء المفسرين تكفسران دولد إيادو قالا إن يدسنان كرته هداي ظلمي قدتك إسكا إلاليسو إيادو مسلمة إن لهلاق كره هداي ظلمي قدتك إسكا إلالي ويدو tan macnaheedu waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala dulmigaad isaga ka gashee ah inaad u shirki yeeshay iyo inaad xumaha samayso khamri cabtoo zinaysato kana in rabbi dibku ugu dhigaa baa la arkaa that's why dowladaha gaaladii haddii ay dadkooda nawcun min alcadaala u sameeyeen jiritaankooda ay u jiraan
haddiise dawlad iyo dadku iyagooba muslimiina dulmiga ay badiyaan dulmigan ka warramaya waa maxay waa dulmu nnaasi bacduhum libacd dadka cadaalad loo samayn waayo xukun iyo xoog iyo xoolo iyo wax walba laga qaado waxay u badantay in cadaabkoodu soo degdego ilaahayna wuxuu leeyahay wamaa kaana rabbuka liyuhlika alquraa bidulmin wa ahluhaa muslixuun rabbi ma aha mid magaalo kuwa degan halaaga bidulmin ay bishirkin gaalnimo ku halaaga ma aha wa ahluhaa muslixuun iyadoo ehelkeedu kuwa cadaalad iyo islaax samaynaya ay yihiin gaalnimo qura rabbi kuma halaago sidaa ogeed bay culimmadu waxay leeyihiin xataa hadday macsidu noqoto qura mid xagga rabbiyo qura laga galay lacalla in fursad lagu siiyo ama dulmigu hadduu noqdo dulmigana in dadka xoolahooda la boobo xuquuqdooda la boobo dilkooda la banaysto waxooda la banaysto dulmigan shucuurta la dulminaya hadday tahay kaas bay culimmadu leeyihiin dowladnimadu kuma dhisnaato marka dowlad kaafira oo nooc min alcadaala ilaalinaysa waa jirtaa bay yidhaahdeen laakiin dowladda daalimada ah walow kaanat muslima ma waarta bay leeyihiin taasina waa xaqiiqa maanta dunida in badan oo ka mid aynu arkayno duwalka isku dayay dadkooda nawcun ma inay u cadaalad sameeyaan cadaalad wada dhaba islaamun baa laga helaa laakiin garaadkooda dadaalay dadku inuu amaama alqaanuun isinaado xuquuq isku mid ah u yeesho qaab wax loogu qaybiyo nawcun ma duwalkaasi maanta waa jiraan duwalkii ballan qaaday inay intay haystaan uun cunaha ku dhagaan mid ay dilaan iyo mid ay boobaan iyo mid ay dhacaan iyo mid ay xabsi ku ridaan ka dhigay dadka afka ka xidhay yidhi carwaa ninka hadla ninkii hadla god madow baad ka soo jeedaysaa waad arkaysaa uun maalin walba midunbaa gilgelinaysaa maalin walba midunbaa daadku sitaa sababtuna waxa weeyaan dulmulcibaadkaa soo degdega fatilka buyuutuhum khaawiyatun bima dalamuu إن في ذلك لآيات لقوم يعلمون بإله إليه أخوتي في العقيدة ظلم قاس عرب حمدي سين لا يسكا إلاليه أي هبون وقتك كوبان دراديد عرب حمدي كو إن ظلم قال الله ريبه ولا نهيه ولا قهضله ولا يسكا وعديه لبا إن ظلم قال له قان سمين والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون بإله إليه وقوة مركا قردرضوا يا هلاشو وحسكا دعية بإله إليه سبحانه وتعالى إن ظلمك اللي ديدو وبرشدو ديدو ظالمك وانين قرى أما وكوح يرى الله صعطة تدكا كبضا لكن تدكا ويبغى قليا تدكا وحيكوها يستان لبنات من خوف تاد بغى كسميسا تاد كاسي هدود دمو تدكا إلهي بغاها كساره de waa arkayseen dunida wixii ka dhacay duwal dhan oo askartoodii waxoodiiba taagan oo madaxdoodii firdhadayeen oo meel ay galaan waaye waa maxay dadkun baa ilaahay baqooh ka siibay idan in la diido ظالمينta inaan loo gargaarin loona weecanin wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum an-nar ilaahay wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala war ha u weecanina ha u iilanina ila alladhina zalamu fatamassakum an-nar isku reer baanu nahay iyo kulli munaafiq wal kala baa haysan lahaayee munaafiq ayagu anagu ha haysta iyo war waxaasi waa khatar ilaahi wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala wala tarkanu ila alladhina zalamu hawa anino haw ilanina kuwa dulmiga sameeyay hadaa uu ilataan maxaa dhacaya fatamassakumun nar wama lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun adab ilahi baydin haleeli doona آخرنا وحيدين درجارة يا وحيدين هيليتون هيلي ميسان برب الله سبحانه وتعالى ظالمك هو جرجار ظلم جيس ولو كلمتنا هالنقطة أسكري هون نقول هالجرجار حولها السين إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوحك جوار رمي فرعون يا هامان لبدا نقول الدنبيل يا الماهي إلهي وحده أسكرتي وحي وتين ادتك كل عقابين وحده بعد الدنبيل يا له إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين بايلهيدي فرعون يا هامان يا عيد مدو دردان اسكو دريان ددك وحي تاغير سنابا
دنبي ليال بيلا أهايان بر رب الله سبحانه وتعالى فأخذناه وجنوده بيلا هيري فنبذناهم في اليم إساقي أسكرتي سبواقا بني بيلا هيري ظلمك أسكرها كان نقن وظلس كان نقن ووحاو ظلمك هقرقاري ظالمك وين هداد قرقارته إلهي وحين لي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان يسوقوا قرقارنا وقت كوبا درادد وحنكو سو كوبي النبي وحلي عليه الصلاة والسلام من عان على خصومة بظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع أحاديث كلا بدن أو كان كعد عدن كسو كان حاكم وريي باجرة أو صحيحين كي غير كود بكو سو أروري أو وضع الصحيحة qofka daalimka u hiiliye u gargaara inuu balaayo weyn ku soo degayso waxaan leenahay baabu tawbana waa furaya akhiran waa dadka muslimiinta ahi dulmiga inay ka toobad keenaan waman ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu ilaahi ninkii xuma sameeyay ama naftiisa dulmiyay thumma yastaghfir ilaahi u toobad keenay yajid illaha ghafuuran rahiima إلهي وحوهلي دونا إساقوا مدن بقردافا فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما كو حماها كسون نقضى الذنوب تي معاصدة الظلم كتوبت كينا إلى يوحوب اللنقاضي سيئات كودين حسنا لو بدله هذا يتوبت ونب نقطه وأتسد بإلهي وتوبت كينته إلهي سبحانه وتعالى توبت وأقبله دول بقيامها لتلماميا انت إلهي لسوهر تاغو مد هايستولا يا رب وإذ ظلميها اللي يقسي حقوق دودي والرب يقولنا يا ما تكعفن ولا ما حقوق حقي من دونية حقي أيان رباه دبت نوح الرب إلها بل حقها إيك دبت نوح أركاد دار يجنو يدول برواقع تربضان له markaas wuxuu ya rabbi liman hadi ilaahay waxa iyaale kulli malaade nabiyada iyo dadka saalixiinta aba leh waad gadan kartaa baa la yiraahdaa maxaa lagu helaya maad qaadano maad ka cafinin baa rabbi yiraahdaa ilaahay waxa uu yiraahdaa yani haday toobadu dhab ka tahay hatta rabbi deynta waa ka gudi karaa toobadu haday dhab ka tahay oo sidq ay tahay toobad dhaba ay tahay aakhira rabbi waa ku badbaadin karaa waxaan leenahay rabbi wuxuu ballan qaaday kuwii xumahaas ku dhacay ee dil iyo boob iyo dhac ku dhacay cadaab kulul bay la kulmayaan cidda toobad keenta ee iimaan la timaada ee amal wanaagsan samaysase ilaahay kuwa sayi'aadkoodii xasan ugu bedelaa baa la yiri سيئات كودي حسنة لو بدلا وحنو باهناي توبة جماعية إننا لا نمادنا كأمة إننا توبت كنا وحي إننا صبينا حماين إننا خفانين إننا كحمانه الندم ياسل التوبة إننا كحمانه وحي إننا حما صبينا إننا ربي وغصان نقرنا إننا كفقنا إننا دائمين wixii aan cid gaar ka galayna inaan isku dayno inaan ka xalaalowno وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما الباب كتوبة إنتان لينا قحرين أين ربي قادوا نقنو إلهنا سبحانه وتعالى دم داف ويديسنو ظلمنا انت بدن ددك ظلمك كرو ايغا وانت بدن بشرك
soomaalidu mahmahooda waxa ka mid ah takarta saaran ma arkee ka kale tasaaran buu arkaa dadka waxa laga yaabaa in laga sheekaysto madaxda iyo nimanka kooxaha wata iyo dulmiga sameeyaan isna waxa laga yaabaa inta yare ku hoos nool inay ku dulmantay islaanta iyo caruurta iyo shirkadda yare ka shaqeynaya iyo shaqaalaha yare masaakiinta u shaqeynaya iyo intan inay isagana ku dulmayeen ba laga yaabaa isna wuxuu ka waramayaa dulmiga maxay qolada xoog badan la iyo meelaha sare ku haysta dulmigooda yaa akhwati dulmigu waa dulmi adba mas'uuliyadaadii baa inta noqotay lacala haday ka waynaan lahayd sidaad intan ba u jajabsanaysaa inta kalena u burbursan lahayd unday idan dulmigu yaryarays ma leh akhwati dulmigu yaryarays ma leh qof muslima la dulminaya anug yar oo dhiganaya mal'aamad quraan dugsi quraan dhiganayana ha noqdee dulmigu yaryarays ma leh idan waxaan naftayda iyo tiinaba kula talinayeen inuu dulmiga ka waantowno dhammaanteen walow kaafirka in la dulmiyo xataa ma banaana dulmi dhammaantii inuu kaafiriye laguma dulmin karo inaynu dulmiga dhammaantii ka maarano ka toobadkeenno ilaahay subxaanahu wa tacaala